gabi ahaanba la soo gabagabeeyay sanad dugsiyeedkii waxbarashada ee 2016 dugsiyada sare waxaana ka qayb ah qowmiyadaha wadankan degan ardayda Soomaaliyeed oo ka qalin jabiyay sanadkan tiro aad u tiro badan wadankan ee Sweden. dugsiyada sare ayaa sanad walba markii ay ardaydu waxbarashada u dhamaato waxa ay waalidiintooda u muujiyaan farxad ee caruurtooda kala qayb qaadanayaan munaasabadaas qalin jabintii ardayda ee dugsiga sare. hambaliyadiina sidaan الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan mahad Ilaahay u sugnaatay maanta inaan ka soo wada qayb galnay aniga iyo ehelkayga qalin jabinta gabadhayda qaaliga igu ah Ancaam Cabdiwaaxid Tahliil Cabdiwaaxid Tahliil Maxamuud maanta waxaan joognaa iskoolka Shartob Gymnasium meeshaas ay ka qalin jabisay gabadhayda Ancaam Cabdiwaaxid Tahliil oo ka qalin jabisay iskoolka maanta xafladii aan ka wada soo qayb galnay dhammaan ehelkii asxaabtii qaraabadii walaalaha kulli dadweynaha u sheeg yaasa halka habali ugu daraysa kalsantiga magacaygu waa Miski waxaana congratulate gareynaa dadka Soomaalida dhan dhamaanta students ka wax barteen aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan halkan ka salaamayaa Soomaalida dhan intii maqalkayga muuqayga taqaana marka waxa kaleeto maanta waxaan joognaa qalin jabintii gabadhayda ama abahni Ancaam Tahliil عليكم السلام عليكم مقعي ورقيم على الحسن محمود وحن هالكان أمد فرحدة قلن شبنت قبل أنعام عبدواحد تهليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلسن تي في كسر دوابة مقعي وأنعام تهليل ما أنت ciideedana rabayna mahad celiyo waalidkaygi aabahaygi iyo hooyadii meeshan joogo iyo ciideedan waa maasantiin dhamaantana inaan qalin jabinta ka soo qayb galay kulli asxaabta ahalka waxaan u rajaynayaa mustaqbal aad u iftiimaya insha Allah ayada iyo kun kastoos dadka Soomaalida oo dhan ciyaalka Soomaalida marka ay joogaan insha Allah waxay dhameysay dugsiga sare Ilaahay waxa uu rajaynayaa hadda heerkan ay gaartay heerka si qaalisan bismillaah allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam halkan waxaan ku qabanaynaa hambalyo ku socota ilmaha Soomaaliyeed ee sanadkan ka qalin jabiyay dugsiyada sare 2016 wadanka Sweden Soomaalida ku nool dhamaantood ayaan uga hambalyeeynaa meeshan qaasatan gabadha la yiraahdo Ancaam Cabdiwaaxid iyo hooyadeed iyo aabaheed iyo dhamaantood qoyskaas gabadhaas ku soo dadaalay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaan u hambalyeeynaa ilmahoodaba kuwii dalkooda iyo dadkooda anfac Allah ka dhigo Cabdiqaadir Salo magaalada Stockholm Sweden